kulan sanadla oo sanadkiiba dal lagu qabto ayaa lagu qabtay dalkan UK iyadoo halkaasina magaalada tani London xaafadda Islington lagu qabtay sanadkan. haddaba kulankan ayaa laga soo casumay safaaradda Jamhuuriyadda Somaliland fadhida dalkan UK iyadoo safiirku hogaaminayay xubno ka tirsan safaaradda iyo xubno ka tirsan jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan dalkan UK iyadoo halkaasina ay dadweynihii halkaa ka soo qayb galay dawladihiiba ay ku soo bandhigayeen waxyaalaha ugu wanaagsan ee dalalkooda loogu tagi karo dalxiisyada iyo arrimaha istaraatiijiyada ee dalalkooda. haddaba Decrease Travel oo ka tirsan jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan dalkan UK xiiseeyana arrimaha safarka iyo dalxiisyada ayaa soo bandhigay waxyaalaha ay ku wanaagsan tahay Jamhuuriyadda Somaliland ee adduunka ay ku soo jiidan karto iyadoo guud ahaanba dadka halkaasi ka hadlay hadaladoodii ay kamid ahaayeen sida tan. alxamdulillaah rabbil caalamiin mahadurta ilaahay bay u sugnaatay maanta naga soo qayb galiyay The Adventure Show. sanad kasta ayuu dhacaa. sanadkii hore Mareykanka lagu qabtay, sanadkan waxa lagu qabtay London. maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa aan sharaf ku yeelanay in aan wadankeena Somaliland ku soo sharaxno oo banka caalamka aan soo dhex dhigno. maanta waxaan ku soo wadnaa 379 Degrees Travel ayaan wadnaa oo ah meel aan ku soo hirgelinayno dadkeena nagu yimaadaan Somaliland. xaggan miiska haddaan idin tuso waxaan ku soo sharaxnay wixii dhaqankeena ahaa, ha noqoto geeleena, ha noqoto dhiishi, ha noqoto fooxi, ha noqoto unsigii, wixii wadankeenu gaar u lahaa ee hibe iyo hanti ah ayaan noo soo bandhigay. alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxaan helnay dad badan oo noogu dhiirigeliya Somaliland inay timaado oo oranaya waan soo soconnaa oo safkii nagu soo jira. wadankeenu maanta wuu taabagelayaa, wuuna hirgelayaa, ilaahayna waan la kaashanaynaa. alxamdulillaah rabbil caalamiin. horta alxamdulillaah inuu maanta Somaliland safiirkeenu noo yimaado oo safiirku maanta agteena iyo meherada soo cagdhigo qiimo weyn bay agteena ka leedahay oo waxay tahay sharaf iyo karaameyn la sharafay kar wadankeena oo la sharfay dadkeena oo la sharfayna dawladeena qiimo agteena ka leedahay. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا ستعيش قلة. كنت أدبر مفرح سنة ما تينا كسر قريب قالوا ترافل شوغن أو أي نقيب كنا هاي أو قريب تينو مسؤول كيه عبد الرزاق. تاسو لو صوب بندقي جوابها دلحيس كروح لبدن دل كنولي هاي يو جوابها تاريخي جا مركارونتي وفرصة هذه عدو ونكسن أو قيمة بدن أدنى مرجو فرح سنة هنا إنه ما أنت إنه أو الدنيا كمدة oo dawladda ictiraafsan yahay in maanta aynu ka soo qayb galno travel showgan marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. munaasabadan runtii waxa weeyaan anigu waxaan ahay ambassadorkii ugu horeeyay Somaliland ee UK fadhiya ee ka soo qayb gala munaasabadan. markii hore waad ogeydo waxaan ahaa wakiil Somaliland u fadhiya wadanka UK laakiin maanta waxaan ahay ambassador maadaama dalkeena la ictiraafay oo dalkii ugu horeeyay ictiraafayna uu noqday dawladda Israa'iil. TV-ga qaranka diblomaasiyiinta safiirka aad baan idin salaamayaa. waa markii ugu horeyseen ka soo qayb galno xaflad sidan oo kala intii uu yimiday aqoonsiga Somaliland. safiirku sida uu shaaca uga qaaday waa safiirkii ugu horeeyay ee represent gareeyay iyadoo la aqoonsan yahay Somaliland halkan xafladan ka soo qayb gala. aad iyo aad bay sharaf iyo qiimo iyo qadarin noo tahay inaan maanta goobjoog ka nahay xafladan qiimaha iyo qaayaha leh ka soo qayb galay aniga safiirka iyo maxaydaan counselorka iyaga Yurub Farax oo masalayna safaaradii dhammaanteed. aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya adigana. waxaad arkaysaan halkan dhaqankii oo dhani inuu ku dhan yahay. Somalilandna waxay caan ku tahay xeebo waaweyn oo maxaydaan aan weli qaarkood aan la degin way leedahay dhul tourism oo cajaabi bay leedahay. marka waxaan leenahay maadaama aan ka soo baxnay godkii aan ku jirnay oo maanta aan international recognized country nahay kaalaya oo dalkayaga arka. dalkayaga waa open, waa peace, stable, moogtahay strong governing body buu leeyahay. marka kaalaya waa goob la yiraahdo travel show oo sanadkiiba mar bay dhacdaa. sanadka kan waynu ka soo qayb galnay iyadoo runtii xafiiska iyo inaan dhalinyarada hore Somaliland Cabdi Rasaaq la yiraahdo aan ka wada shaqaynaynay muddo bil ah baanu xiriirka sameeynay
maantana waxay noqotay maalintii alxamdulilah ay suuro gashay dunidii oo dhan baa isugu timi meel walba waa laga yimi dadkii businesska haysta baa jooga wadamo kalaa jooga hadda waxay ka soo horjeeda Oslovakia waxaa jooga wadamo fara badan baa isku soo bandhigay alaabooyin kala wada jaada lagu soo bandhigay inaguna sidaas oo kale waxaan soo bandhignay alaabteennii oo dhan macalfooxeennii waa kana malabkii freshka ahaa ee Somaliland waa kan uusi waa kana isaguna muxuu ahaayey Somaliland maxaa briefing information oo waxa soo dhan waraqa ku qoran yihiin. Okay, well here today we're talking about Dominica. It's a Caribbean island in the sweet spot between Antigua to the north and Barbados to the south. Dominica is not the Dominican Republic. The emphasis is on the ik, and this is all about nature and the opportunity to do activities in nature. So sure, there's wonderful beaches. Thank you, Somaliland Television. That has built itself from the roots up. I agree, everything, we always say something's built from the roots up. But what does it really mean? As Somaliland, we went through a lot. We were the first we were colonized. I'm going to stop myself there. First we were a country, and then we got British colonization, and in 1960 Britain gave back as a full country, and we recognize us. 34 states of the UN group recognized Somalia as an independent country. We joined back forces with our sister country Somalia. After we rejoined back, on the 1st of June 1960, I think it was. I'll be corrected later on if I make any mistakes. But since then, we've been building back our independence, taking back our recognition, building ourselves from the roots. And a country becomes a country when they have stability, have peace, have people, have a culture, and have history. We are delighted to have the opportunity to present Somaliland's rich and ancient tourism landscape. On that offer visitors a truly unique and rewarding experience. Actually, I am the first Somaliland ambassador who visited this place and take part in this event. I'm glad that. Somaliland is a land of extraordinary natural beauty and deep historical significance. From the dramatic Golis, Dalo, and Shibris mountains to pristine unspoiled beaches along the Gulf of Aden. Somaliland is also home to one of the most remarkable archaeological treasure, Las Gale. We just show you, I think, a few minutes ago. A complex of ancient rock art dated back over 10,000 years, the oldest such known in Africa. This vividly preserved cave painting depicting early pastoral life, wildlife, and rural scene are among the most significant and best conserved examples of prehistory art on the continent. Las Gale stands as a powerful testament to Somaliland's deep historical roots and its long-standing connection to human civilization. For those ciinawi cismaan ducaale iyo shaqale warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Somaliland, London.